ugu yaraan 6 qof ayaa ku geeriyootay kadib markii rag hubeysan ay maanta xabada ku fureen laba baabuur oo rakaab ah oo marayay meel u dhow xuduudda Kenya la wadaagto Soomaaliya. Booliska goobta tegay ayaa arkay 6 qof oo toogasho lagu dilay. Waxaa sidaas yiri madaxa booliska Kenya Joseph Munyati oo intaasi ku daray ugaarsiga argagixisada uu socda. Dadka dhintay ayaa la rumaysan yahay inay yihiin 5 qof oo rayid ah iyo 1 qof oo boolis ah. Ugu yaraan 11 kale oo rayid ah ayaa lagu dhaawacay. Weerarka ayaa ka dhacay inta u dhaxaysa Eldoret iyo Wargaduud. Weerar noocan oo kale ah ayaa horey uga dhacay gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa waxaa fuliyay kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalanta koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya. Shalay ayay ahayd markii qarax haleelay baabuur rakaab ah oo marayay wadada u dhaxaysa Muqdisho iyo Afgooye oo ay ku dhinteen 18 ruux. Al-Shabaab ayaa kumanaan qof oo shacab ah ku laayay tan iyo markii ay ololaheeda argagixiso ka bilaabeen dalka Soomaaliya 10 sano ka hor. Maaha markii ugu horeysay ee weerar noocan oo kale ay ku qaadaan dalka Kenya. Khalid Cabdikariin Xaaji, shabakada caalamiga ah Hiral News, magaalada Burco.